Hi, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena YouTube-ka ee Somali Youth Scholars. Insha Allah maanta mawduuca ka hadli doona wuxuu yahay sida loo buuxiyo oo loo dirsado foomkani deeqdan waxbarasho. Deeqdan waxbarasho waa deeq waxbarasho cusub oo sanadkii ugu horeeyay ay tahay oo deeqdan waxbarasho waxay bixinaya dowladda Turkiga iyo ururkan Islamic Development Bank. insha Allah sida loo buuxiyo wax walba oo dhameystiran videogeena insha Allah idinku tusteena. Hadda aynu bilaabno videogeena. So marka ugu horeyso waxaa u baahanay inaan leedahay email, yani Gmail inaan leedahay. Marka ugu horeeyo waxaa booqanaysaa website-ka scholarship-kani deeqdan waxbarasho meesha ay ka buuxsanayso. Website-ka magaciisa wuxuu yahay insha Allah hoos ma soo dhigi doona YouTube-ka qaybta description-ka soo dhigi doona insha Allah. Waxa website-ka waa www.turkiye kana isoo bixinay mar badan booqde, yani waxa waaye waa www.turkiyebrusselari.gov.tr. website-kaas waa website-ka booqanaysid insha Allah. website-kan sidaan ugu eegay iska ilaali website badan jiro oo magacaas ku qarabta oo yani uusan website-ka saxda ah. So markaa gashid waxaa taabanaysaa meeshaani ay ku qoran tahay apply. Haddii adiga foomkan hore u buuxisay, yani bishii la soo dhaafayay bishii February saajaclaya waxaa furnay scholarship-ka ay bixinayeen dowladda Turkiga Brusselari. haddii midkaasi xareysatay sidoo kale kana waa xareysan kartaa micnaha, yani ma ahan kaas da xareysan kan ina xareysan karin waa xareysan kartaa. So email-ka ku isticmaashay kaas horne kana ku isticmaali kartaa. So hadda aniga weli muusan qofkan isticmaalin, yani registration hadda ku sameynayna marka u horeyso meesha registration ku qoran taabo. So information-ka ina buuxisa laga baahan magacaaga, name-kaaga, middle name-kaaga, surname-kaaga. waa magacaaga koobaad, baasaboorka magac kugu qoran dhaxda ku jiro iyo magaca u dambeeya. insha Allah waa isla wada arki doonaa. sidoo kale uma maleynayo in hadda baasaboorna uu waajib yahay scholarship-kani. baasaboor laana xareysan kartaa saa rajeynayo. micnaha waxa waaye yani wax qasab ma arkaysaa u maleynayo, yani baasaboorna uusan waajib ahayn uma maleynayo. yani baasaboor laana waa xareysan kartaa, ID card waxyaabo noocaas oo ku xareysan kartaa. So information-kana aan buuxino kasoo qad magaca ugu horeeya waxa weeye Mohamed, magaca ku xiga wuxuu yahay Ahmed, magaca saddexaad wuxuu yahay Ali. So waa tusaale ahaan waxaan idin tusaay gender hadda dumar tahay, female hadda rag tahay, male xilliga dhalatay. So markayna meeshan wax idinka sheega u baahanay qofka ardayda qofka bachelor degree-ga xareysanaya, yani hadda dugsigiisa soo dhameeyay oo hadda xareysanayo jaamacadii seelkiiskooda, yani bachelor undergraduate-ka da'daada haddii ka weyn tahay yani 2000 wixii ka wixii mesela January taariikh 1 bishii koowaad 2002 ka bilaabato wixii dhasha xareysan kara scholarship-ka, yani dadka oo undergraduate yani bachelor dadka xareysanaya. hadda 99 dhalatay, 97 dhalatay, 98 dhalatay ma xareysan kartid scholarship-kan oo yani bachelor degree da xareysanaysid da'daada ay ka weyn tahay 2000 yani ma xareysan kartid. waa inaad dhalatid 2000 yani wixii ka dambeeyay inaad dhalato waajib ah scholarship-ka. midaas inaad ogaato waxa waaye aad muhiim u tahay. email-ka qofkan aan gelino Ali Ahmed so email-ka saasa u gelinay. sidoo kale email-ka ku celi email-ka isla naftigiisa Ali Ahmed 1123@gmail.com. so password email-ka markaa gelisid meeshan waxa waa secret question wax ku qoran, wax iskaga qor
سؤال واحد اسكي قر مثلا مقع اسكي جلي علي عمل اسكي جلي so ماشان تكسر عارضا يعني proof كان تاو so save أنا دهنا مركز save جرينو إنه حنوصل بحيث قيب تاني مهم يعني إنا اسكفيري سيدا مقعي يوحي أقرته سفي عن سي تحضر الاسكفيري هدي باسبور أي هستيدو باسبور كاية سيدا كو قرنية عمل او قر دب اسكده صح so ماشان تكسر أي بروف ده هدو قلديني وحكا قلديني إديد جري دب اولاو ساس سمين تكسر ماشان صار so هذا registration واسمينه فومكا registration واسمينه so marka home page ku laabo hada email ka ay message ku soo direen yani gmail ka ay message ku soo direen so email ka aadina waa kana message noo soo direen message tixer please click on the link below to complete your registration process and confirm your email address so tixer meeshani so hada waxa waaye email kaagi waa complete gareys hada email ki agilis registration ka ku sameeyne iyo waxa kale oo lagaga baahan yahay password ki ha iloobin tusaalana waxa geliye so adiga waxa xasuustaa kule email ka agilisay iyo password ka agilisay so sida sax ah u gelinay information ki registration waa sameysay registration marka aad sameysay email ki aad ku sameysay password ki muhiim ku inay sidaan iloobin email ka waxay ku soo diri doonaan message يعني oo ina email ka active ka dhigtay so form marka gashay sidaan uu eegyahay marka waxa laga baahanaa waxaan dhan awada buuxino na form kana wada buuxino loo baahan so marka ay tagtid meeshan home page ka scholarship ka ku soo baxay waa bachelor degree master degree PhD in research hada apply dhahno naga ma yeelay kama yeelay hada يعني information كان كله وحب ما نسوق لين يعني so حسمينا personal information كان يمو edit ده so حنينا نبي حسالي بين country of birth ماشي أقول لك Somali كل شيء ماشي أوصي لك مثلا أنت كل شيء Somali أقول لك Somali أنت أجسي لك Somali وحاو meesha aad muqdisho ku qoraday passport sida kugu qoran saxda muqdisho ku qoran meesha ku dhalatay muqdisho tahay muqdisho ku qoradaad ku qornin passport wax kale kugu qoran waxaas ku qoran so mesela ani passportki waxay ku qoran inaa ku dhashay soo qad Kismaayo camal so qoru ka soo baxay Kismaayo so meeshan laba shay ku qoran mid la qaranka la passportka meeshan la qaranka waxa waaye hadii aad leedahay yani ID card iyo wax noocaas waa ID card ka number gelin PDF iyo waxa uu haysid inta soo gelinaysa yani hada sawir ahaan uu haysid PDF aan isqeybtan soo gelin so laakiin ani maadaama hada passport haysto la passport meeshan gelina so wuxuu kaaga baahan yahay passport number saxda ku qoran passport Soomaaliya wuxuu ka bilowday P iyo wixii number is dabaraaco gili adiga so magaca type of passport ka noocyay yani nooca passport ka abatid maadaama aad arday aan ahne badan waxa wada badana passport ordinary waxa gelinaysa ordinary sidoo kale wuxuu leeyahay country code of passport wuxuu leeyahay yani wadan walba code uu leeyahay passportadooda Soomaali passport kan code kan waxa way 706 waa 706 way code kana sidoo kale documentiga passport soo qaad meeshan tixar PDF da uu haysid di sawiraan uu haysid ya passport ka doo soo gelin meeshan so marka saan dhameysid qaybtaani yani waajib ma ahna buuxis laakiin waa buuxin kartaa yani diinta tahay muslim islam sunni shiica waxaas ku soo qorqoraan islam sunni de
disability waxaas maa leedahay yani meel maa laga yani qof curyaan ilmaa laga gacan meel adig problem maa qabtaa haddii aadan qabin wax probleme waxaad dhihaysaa I don't have any disability. meeshani wax micno ma lahan iidan tan ka soco. soo save garay inaad save garaysa ha iloowin meel walba buuxiso. meeshan waxaa kaloo dheer muhiimna waa adina iska buuxsid yani wax muhiimna maahan yani muhiimna maaha muhiimna waa yani muhiimna maaha. so qaybtan hoose information of hobbies yani waxyaabaha aad jeceshay inaad sameysid haddii jiraan yani waxyaabaha badan aad jeceshay inaad sameysid mesela waxaad jeceshay inaad buugaagta akhriso waa editing waa dhihi kartaa waa buuxin kartaa yani waxyaabaha jeceshay mesela anima xayawaanaha jecel bookska jecel waxaa kaloo inta jecel ku jiro travel inaad safar waa jeclahay cuntada waa jeclahay sportska waa jeclahay. so wixii ka qanciyay samee laakiin inaad wax qorto way fiican meesha yani waajib waa inaad save garayso ilaa inta ah wax gelisid hobbies-ka ay marka meeshan gelinaysaa. so marka hobbies-ka intaan waxaan meeshan ku qoran bookiska animals waxay gelisay mid ka mid ah qaado information-ka yani meeshan ku qoran mesela tusaalaan waxaa qori kartaa aniga meeshan hoose waxay gelin sports and outdoor sports. mesela aniga waxaa jeclahay camal sportska jeclahay inaan sameeyo waxyaabaha ka mid ah yani inaan sameeyo ka mid ah sportska waxa uu kala baxay yani maxaa sii jeceshay mesela basketball wax yar ka qorayna basketball is my favorite from when I was a kid. so ilaa intaan adi wax ilaa waxyaabo laba sarad waxyaabo qaar iskaga qor. so marka muhiim ah yani waxaan in boqolaal erey qortid yani wax waajib ku ah maahan. so marka teeda kale yani waxa jeceshay ku qor meeshan yani wax been hadaa ka waran buugaaga ina akhriya jecel hadda ay gelis buugta akhriskoodan aadan jecelin marka waxa jeceshay inaad sameysid kali badanaana adiga dad stupid ma naftirkooda ku fahmayeen yani qof walbo 100% dadka waxay soo xariistaan yani markii hobbies-ka ay maad waxay jecelin buug qof walbo gelina buug qor yani buugta jecelina akhriyo saa dhishalaad buug akhriyo aad u jecelahay. so that's nonsense marka wax micno ku musmeynaysa yani waxyaabo kale daa cuntada jeceshay cunto karinta cuntooyinka kala duwan cunto ina cunto write it qor wax problem ma lahan. so section kan save gray marka dhimeysid sidoo kale wax talent kale ma leedahay yani talentiyo yani waxyaabo ku fiican tahay mesela ma jiraan yani oo qaas ah meeshani ka dooro waxa jeceshay ma jiraan mesela sawir qaadada ku fiican ina wax sawira jeclahay guitar ina qaraaca ku fiican sidoo kale mesela basketball ina dheela jeclahay biskil ina wado. so boxing sidoo kale waa jeclahay. so waxyaabo iska doore save gray. so meeshani hadda waan dhamay. so marka saan u dhameeno waxaa imaanayna qaybtan family information. so marka inta waxay gelisaa waalidkaaga akhbaareedkiisa yani hooyada hadee noo sheey aabbaha haduu nool yahay akhbaaroodkiisa soo geli mesela hooyada magaceeda oo si saxan u geli mesela hooyadii magaceedu waxa waaye Saciida la dhaha ka soo qaad Saciida hooyada ma nooshahay hadee nooshahay hadee noolan maya yani wax problem ma jiro iyadoo hooyada nool hadii hooyadii waxa waaye yani way dhimatay yani scholarship sida ku hesho is no hasameeyna midaas aabaha magaciisa geli Ahmed haduu nool yahay yes wuu nool yahay meeqa walaal ku latay 7 amal ay latay meeshan imo dakhliga family-kaaga soo galo mesela 7 ku latay ka waran hadii ay $50 lacag ma soo gasho
iyaga naftirkooda ku fahmay yani $50 toddoba cunug wax lagu qoodiy maahan yani marka wax macquul noqonayso familka ku basgaray geli meeshan mesela ilaa $250 ilaa $500 camal soo gasho geli yani wax problem ma lahan then save gray hay loowina save grace meeshan contact information ay imaano contact information waa meelihii kala soo xiriir lahayn in case daa ku guuleystid scholarship-ka oo emailka ay kala soo xiriirin emailka ay ka heli waayeen aan telephone number oo email kala soo xiriirin u baahan yihiin so country Somalia and city Kismaayo postal code waxaa ingiliisa furaha Soomaali 252 isgiil wax waajib ku ah macnaheena telephone numberada mid telephone number ay haysatid iyo waxa kale oo ingiliisa telephone number familkaaga ma hooyada aabahay telephone qof wuxuu wato geli soo lambarkii soo qaad furaha way ku siin 252 90 telephone numberka markaa gelisid soo addresska ku waray maadaama aniga address aysan lahayn Soomaaliya maanta address wax loo yani meesha digantay iska qiyaas waxa la iska geli address street wadada diganta wadada 12 dhismaha shanaad albaabka labaad so meeshan tika saarin wuxuu leeyahay yani my contact information is different from my resident address waxa waay yani lambaradan had telephone numberada meeshan aan ku qoray iyo ciwaankani uu ka duwan yahay yani hadda meesha ku noolahay marka wax macna ma laha kan ka gudub wax problem ma laha so meeqa sana digneed yani meeqa bil digneed address kan 25 sano iskare so social media hada leedahay geli meelahan yani laakiin waajibku uma ahan then marka dhamaysid qaybtani ina save grace ay ilowin so marka aad dhamaysid section walba yani qayb walba calaamadan oo buluug oo waxa soo muuqan doonto oo cagaarka so qaybtani waxa qaladna ma ogi laakiin dib waa ugu laabto yani sabir ay ilowin yani sabir ina ku darno sabir soo dooranayna sabirka marka dooratid okay save gray kadib save zar hadda uu isbedelo ujeeda calaamad waxay isku bedeshay calaamad cagaaran so qaybtani waa education information waa meesha ay gelin leed akhbaaradkii iskuulkii iyo waxa soo dhan insha Allah sana balwan arkayna hadii aad dugsi sar soo dhameysada oo aad xariisanaysid bachelor degree waxa laga baahay qaybtan high schoolka ay ku qorantay inaad buuxisid aad taabatid afurtid sidoo kale haddii rabtid in aad xariisato master degree waa inaad qaybtan buuxisaa waa high school inaad buuxisid sidoo kale bachelor degree aad buuxisid laga baahan yahay si master oo apply garaysid haddii PhD aad apply garaysid waa inaad high school bachelor master intaas inaad wada buuxisid waa maadaama hadda aan buuxinayo bachelor degree high school ka buuxinayna so waxa laga baahan yahay iskuulka yani wadankii ku yaalo yani caasimadda ku yaalo iskuulka magaciisa meeshaan ka dooranayna wuxuu yahay high school type nooca iskuulka high school uu yahay wax suran insha Allah buuxin doona waa idin tusaa halka uu hore wadanka Soomaaliya
so markaasaan usoo buuxsado waxaa sameynay wadankii uu ku yaalay country city caasimadda uu ku yaalay iskuulka kasoo baxay boosaasaa geliyay iskuulka magaciisa marka ay gelisay yani city caasimadda yani gobolka boosaaso horuu kaaga soo bixina iskuulada boosaaso dhan ku yaalo yani horuu kaaga soo saara marka iskuulka kasoo baxay adaa qaano marka iskuulka ay geliyay al-imaamu al-nabawiya kasoo baxay waxaa idin tusaa waxa iska example tusaale markaa buuxinaysa marka sidaan oo kale inaa buuxisaa looga baahan yahay iskuulka kasoo baxay yani education stage-ka wuxuu ahay waa secondary education waay type of school muxuu ahay yani school good oo general yani cilmi good lagu barto mid diimeed miya mid vocational high school miya marka Soomaali iskuulada waxaa general aan u badan yihiin yani xag diin xag walba kullu isku barnaa yani wax walba so major field of education ina wax khaas ah baranaysa ma jiro high school-ka ma jiro yani Soomaali ahaan wax walba general waa anaga iskuuladeenna yani wax isku yani wax gooni language iyo math iyo literature iyo science natural yani badanaan waxay u badan yihiin general bise iskuulada badanaan waxay u badan yihiin science and natural science so marka aniga midaan ilroonad midaan doortay iskuulka haddii aad dhamaysay graduate ku qora haddaadan dhameynin waxaa dhahdaa yani continue yani sanadkan camal hadda aad gal rabtaa imtixaanka dowladda camal mise imtixaamo weli maadan galin waa gal rabtaa marka continue waa dhahi kartaa oo transcriptiyada iskuulka waa kasoo qaadan kartaa transcriptiyada soo ku xareysan kartaa hadda transcriptiyada kusii xareyso passport hataa waajib maahan hadda passport haddaad haysanaytaa passportaan waa xareysan kartaa iskuulada transcriptiga kasoo qaado transcriptiyada waa ku xareysan kartaa meeshaan qaybtan state-ka maadaama aadan dhameynin continue aa dheew yani waxbarashada waa wataa waa ii socotaa iskuulka waqtigaa bilowda iyo waqtigaa dhameysa so grade type waxaa waaye yani iskuul walba wuxuu ku qiimeeyaa yani dhibcahooda yani iskuulada qaar badanaa 4 ay ku qiimeeyaan badanaa 4 waxaa isticmaalaya yani badanaa jaamacadaha wadamo qaarna way isticmaalaan 5 way isticmaalaan 10 waa la isticmaalaa toonta lag Soomaali badanaa 100 waaye yani badanaa hadda example imtixaan gashay imtixaan dowladda camal gashay imtixaanka waxaa keensta mesela 100% 90% 80% 90% 70% marka aniga grade type keena waxa waaye waa 100 waaye marka wax kale ha gelin dhibcaha keenta 98 waaye 98 maxaa ku sii raacay point 98 mise point 0.1 iyo waxa ratigeladi waxa rato qor kartaa yani ma ahan adi wax gooni u leey waxa rata raacay 0.5 wax uu hada then transcriptiyada soo qaad oo geli maadaama aan graduate-keeda geli transcriptiyada geli diploma-yinkeyga marka inta dhahayd qaybtan section-kana ku soo horay section-kani waa section aad iyo aad u muhiim ah 100% laakiin badanaa dadka ma fiiriyaan yani muhiim ma siiyaan waxa waaye haddii iskuulka markii intaa dhiganaysay haddaa yani kaalimo aad soo geli jirtay haddaa iskuulka tartamada la qabanay ay ka qayb geli jirtay shahaadooyin aad ka haysatid meeshaan aaday ku anfacay geli haddii aad haysatid meesha waxa ku qoran please indicate any achievement you obtained during your education tusaale ahaan waxay ku leeyahay example the best performing student so haddaa haystay shahaadooyinkaas ha gasho meeshaan have you achieved any significant ranking at this education haddii aad leedahay shahaadooyinkaas haystid haadhe then field of achievement yani fieldigaas muxuu waxa ku guulis yani wadan yani gobolka aad joogtaa wadanka dhan iskuulka yani iyo state-ka intuu ah yani abaalmarintiisa lagu sii yani kaalin position ka gashay yani wadanka dhan ma u gashay caasimada ee ku noolad ma u gashay iskuulka ma u gashay meesha u gashay geli so maadaama aanan wax kaalin galin Soomaaliland isma sii badanaa waxaas soo marka noo iskale laakiin way fiican tahay maamulaha iskuulka u tag la xiriir يعني ku sameey shahaadooyinkaas noocaas ama mise adiga soo sameeyso u tag iskuulka Timbra iyo saxiixiisa ka qaado marka aad muhiim u tahay deena marka aad dhameysay section kan inaan save grace ha iloobin hay save grano so hadda way save green
qaybta education information keena. So qaybtana ay imaan sidoo kale language details. So luqadaada hooyo maxaa waaye ku qoran meeshan native language. Af Soomaali waa native language keena. Af Soomaali. luqado kale aad taqaanid ma jiraan meeshan. Haddii aad taqaanid plus add calaamadan taabo igeli luqada taqaanid. maxaa aqaana Arabic, levelkeyga beginner ah. sidoo kale hadaa luqad kale aad taqaana ay jirto add. waxaa aqaana luqada Englishka ilaa heer noocee advanced. wax si shahaado ma haysataa? haa, haddii jirto waxaa gelinaya shahaadooyinkaaga aa haystid Englishka. da IELTS waxaa haystid IELTS ka geli. maadaama aa haysanin iga qad muu baahni hadda inaa geliyo. then waa save gareyneynaa. so then waxaa imaaneen waxaan qaldaa umaneynaa dib aa u laabano. yaa waxaan ilowne qaybtaani Turkish, luqada Turkish language. haddaa luqad Turkish ka taqaanid yes dheh, kadib shahaadada geli. yani meeshaan waxaa dhahdaa do you have a certificate of Turkish language? luqada Turkishka ma ka haystaa wax shahaado ah? haddii aa haysta haa, then informationkeeda geli buuxi. maadaama aada haysanin iska daa. so do you speak Turkish? haa, haddaad ku hadishid haa, haddaada ku hadlin maya. maadaama aan ku hadlin maya kuma hadlo. then save garey ha ilowin. waxaa ka tagnay luqadeeni af Soomaaliga. so haddaan save gareynin hadda waana saxantay. so calaamada markay kuu soo qorto yani wax walbo way saxan yihiin. hadda yani wax walbo waa noo sax. personal information waa soo dhammeynay. family waa soo buuxinay. contact waa soo buuxinay. education language waa soo buuxinay. so qeybahana ku harta oo calaamada casaanta yani oo calaamadan ku qoran oo huruudka. work experience, academic qualification, social activities. so waxaan waajib kuuma ahan saddexdaani. waajib kuuma ahan inaa buuxisid. laakiin 99% dadkii geliyo oo meesha informationkooda buuxiyo scholarship badana iyaga la qaataa oo la siiyaa. so qaybtan sectionkan oo Turkey experience midani waxa waaye are you in Turkey now or have you ever been in Turkey? hadda Turkey miyaa joogtaa mise weligaa yani mar ma imaato Turkey? yani have you ever been in Turkey? weligaa ma imaata meeshan Turkey? maya, weligeena maana tagin, haddana ma joogi. haddaa scholarship iisoo baxo waa aadaya iidid. so meeshaan kala kusoo harte please specify how you learn about this scholarship. scholarshipkan yani intay kasoo maqashay kusoo sheeg. haddii qof jiro kusoo sheega, hadduu website jiro, hadduu YouTube jiro, meeshaan soo geli. misala waxaa ka maqashay YouTube channel keene Somali Youth Scholars. social media iska geli. social media kasoo maqlay. su-aasha labaad, do you have a relative who is current or was previous hold a Turkish scholarship? yani ma jira yani qof qaraabadaada iyo mise yani qof aad taqaana yani oo weli ku guuleystay Turkish scholarship. yani scholarship kooda ma jira. so do you have any relatives living in Turkey? wax qaraabo ma leedahay oo Turkey ku nool hadda? maya, iska dheh. haa leedahay, maybe barbar inay ku keento laga yaabo. so warka dhan waa la soo gaabinaa maya. so save garey qaybtanna waa dhameynay. so hadda ana geysin qaybta home page-ka. meeshaani waa meesha ugu muhiimsan. waa meesha ka doonan lahayd jaamacadaha iyo waxa dhiman insha Allah. niima sheegay hadda waa arkeysin insha Allah. so waxaa hadda inoo banaan inaan xareysano bachelor degree, master, PhD, research. intaan noo banaan ani inaan xareysto. waxaa lii banaanay hadda inaan xareysto waa bachelor degree. so waxaa taabanayna batonkani oo ku qorantay apply. xareyso.
so ina akhrisid isku day formkan yani meeshan yar attention so akhri then I understand kadib qaybtani I read and I accepted all the conditions tixar ha iloobin kadib save gray then meesha ku xigtaa waxay tahay preference so meeshan waxaa jirtay haddii dadka xareysteen Turkey Bruslari waxaa jirtay qayb oo meeshan la gelinayay oo recommendation letter yani maamulaha iskuulkaaga warqad uu ku soo qoro hadii ay jirtay meel la gelinayay jirtay meeshas hadda way ka saareen oo meeshan letter of intent kuma jirto formkani markii loo barbar dhigay formkii Turkish scholarship wuu ka yara duwan yahay yani wuu ka fudeediyay yani warqadaas camal kuma jirto hadda so hadda preference yani waxa dooranayna jaamacadaha inta ka dooranayna jaamacada waxa lagu yani badana ay ku ogol yihiin yani you can choose up to 12 university and departments yani ilaa 12 jaamacad iyo 12 kulliyad kala duwan aad dooran kartaa laakiin hal mid oo hal sir haddaa rabtid in fursadaha guuleysiga scholarshipka ay kor u siyaadaan ha isku dooran 12 jaamacad iyo 12 kulliyad kala duwan waxay fiiriyaan qofkan wuxuu soo doortay jaamacaduhu doortay ee fiiriyaan mesela waxaa dooratay economic jaamacadda koowaad economiga ka dhigtay jaamacadda labaad waxaa ka dhigtay caafimaadka ka dhigtay jaamacadda saddexaad waxaa ka dalbatay business ka dalbatay caafimaad jaamacadda afraad waxaa dalbatay engineer na dalbatay jaamacadda shanaad waxaa dalbatay medicine yani kulliyada kala duwan oo islahayn yani meelba iska soo gelin kala dooratay soo marka waxay u fahmayaan yani qofkan inuu meel uu socdo aysan leeyahay yani waxaan oo dhan inuu barto uu rabo marka adiga ham yeelo yani qof hal wax ka go'an inuu barto oo hal wax soo doorto noqo maadaama ani waxa rabaa hadii inaan barto mesela beeraha u baahan inaan barto ka soo qaato salahan waxa dooranaa wax beeraha hoos imaado beeraha quseeyo kulliyada badan ay jira beeraha dooro yani markaas wuxuu ku fahmaa qofkan qof beeraha jecel waay wuxuuna soo doortay beeraha wax hoos imaado iyo wax beeraha quseeyo yani adoo beero doortay jaamacad kuwad beeraha ka dhigtay agriculture doortay jaamacadda labada waxa ka dhigtay medicine caafimaad jaamacadda saddexaad waxa ka dhigtay engineering inta u socotaa macna no way meel u socotid male waxaan waa iska gilis iska xareys way macna so marka waxa sameeyay yani wax fiican jeceshahay hadii jiraan door kaligiisa yani 12 jaamacad dooran karta option waa adiga ku siiyeen iyo 12 jaamacad department aad dooran karta laakiin hal kulliyad jeceshahay hadii inta ku jirto hashas kulliyad mesela medicine raba inaad doorto medicine raba medicine dalba 12 jaamacad 12 labadooda waxa u kala dirsata medicine waxa taawanay qaybtan ay ku qoran tahay adding so waa u jeedin kulliyada agricultural biotechnology agricultural economy waxaana agriculture way agricultural machinery engineering and technology agricultural structures and irrigation agricultural engineering this waxa way waa kalluunka iyo waxa soo simata ka soo marka waxa u baahan tahay kulliyada ratid dalbo so waxa taawanaysa meeshaan ay ku qoran tahay tick waxa rabaa inaad doorto arwa mesela aan ka soo qaado tusaalahan economiga u baahanay economiga dooranayna waa kana economic so economic waxaanu jaamacad awadi bixiso waxaanu dhan jaamacad ay bixiso marka waxaanu jaamacad adiga garanay waxa ka dooran kartid wixii ku qanciya raadi research ku samee teeda kale yani jaamacadaha waaweyn mesela Ankara kale jaamacadahaas camal Istanbul oo kale jaamacadahaas aad ku waaweyn yani kulligooda ka wada dalbaneen yani kuma siinayaan yani jaamacada yar yar iyo jaamacada waaweyn labadaba isku darso so hada ani camal waxa dalbana
AJ University oo ku taala Izmir hadalbana 30% English waaye 70 soo hore waxa waaye waa af Turkish jaamacad koowaad waxaa ka dhigtay AJ waxaana doortay economics jaamacadda labaad Agdenis aan ka dhigtay waxa waa 4 sano meeshan waa sii taaban kartaa waa arki kartaa yani waxyaabo haddii yarban yani waajib ku tahay TOEFL waxyaabahaas ay kaaga baahin kaaga ma baahan waxaas oo dhan so Agdenis University waxay u baahan tahay durationka 4 sano waaye luqadda ku dhigan doonida af Turkish waaye marka dooratid yani asantig u sartid safe dheh waxay ku soo galaysaa sectionkan qaybtan koodi AJ University labo Agdenis University tan saddexaad waxaa iga dhigtaa jaamacad what is the economics waxaa iga dhigtaa tan saddexaad iska shahir kasoo qad iska shahir dalbanayna aad jaamacad kala dalbo economics jaamacadan sidoo kale waa jaamacada aqaano 30% waa English 70% soo waa af Turkish waana 4 sano sidoo kale so economic doorat economic wax ka agdhow waa dalban kartaa kulliyada economics wax ka agdhow hadii jiraan aragtid ina bartid mesela wax economic ka agdhow mesela trade ko international trade oo kale wax business oo simaado waa dalban kartaa international trade where international trade and finance waxyaabaha jaamacadaha bixiyo midaan Ankara Haji Bayrak Valley University ka dalbanayna so hadaarti ina wax kale ku dirsatid hada ilaa 5 jaamacad dalbane wili 7 jaamacad noo siyaartay ina dalbano marka waajibna macni kuma ahan ina dalbadid inta soo jaamacad laba xabad taa dalban kartaa international trade and logistics midaan kale ka dhiganayna waxaa noogu doortaa tan Agdenis University so aniga waxaa dalbanay 6 jaamacad iyo kulliyad 1 2 3 4 oo economics iyo 2 mid international trade and finance amada mid kale international trade and logistics so markaad dooratid jaamacadaha sidaan ilaa inta rabtid dooro meeshaan inaad tig saartid safe grade 3 ilowin so hada qaybta jaamacada waa xareesta yani waa tig grade yani waa tig asarta yani hada way ka dhamaatay qaybtan waxaa tagtaa qaybtan letter of intent ay ku qorantay tig sar so meelulba aad dhamisid waxa way calaamadda bay isbedelaysaa calaamadan isku bedelaysaa letter of intent aan ku soorto so take yani meeshaani aad ay muhiim u tahay inaad ka taxadirtid aad ay muhiim u tahay su'aalahani si fiican hada aadan qorin wili hada screenshot ka qaad yani mobilkaaga wax ku sawiro mis screenshot ka qaad su'aalahani screenshot ka qaado dhamaantood aad ay muhiim u yihiin yani inaad si fiican u qortid yani kulli ina buuxisid isku day su'aalahani sabir ka qaado qof isku macallimiintaada waxay la kaasho ka caawiyaan si fiican ugu taxadir so tusaale ahaan aniga waxa way yani wax been iska gelina meeshani marka saan u qortid abuuxisid meeshani in aad safe grade ay ilowin safe dheh su'aalaha marka qortid abuuxisid safe grade so waxaan imaan interview location meesha ku gelaysto Soomaaliya so city meesha ku gelaysto hadaa Muqdisho joogto ila safaaradda Turkiga waxa ku taala waa Hargeysa iyo Muqdisho hadaa Muqdisho daro hadaa Hargeysa joogto Hargeysa agaareeda ka dhowdeen Hargeysa dooro maadaama Muqdisho ay joogo Muqdisho iga dhowdeen Muqdisho doornaana then safe grade wax walba ina safe grade isku day so qaybta u dambeyso qaybtan waxa waa saamiri yani akhbaaraadkii yani wixii aad soo qorto dhan waxaan personal information family content wixii dhan oo la isku soo wada daray
meeshan iskugu keeneen. Marka wixii kaa qaldan dib u raac, wixii kaa qaldan jaamacadihii aad dooratay wax qaldan ma qore, waxaas oo dhan dib ugu laabo, hal iskaga sax, inaad si fiican ugu taxadirto isku day. So marka aad checking grades aad dhameysid, meeshan tick saar, then submit yani dir application-kaaga. So marka aad application-ka aad dhameysid, then oo submit grades aad dirtid, waxaanu kusoo diri doonaa yani qaybtan ku tusi doonaa oo sanadka waqtiga 2021 term semester, then results waxaa way waiting evaluation, waxaad sugaysaa qiimeyn. So marka insha Allah wax badan ay idinkiga baxaysaa rajaynaya videogani, wax badan ay ka faa'iideen. So marka hadduu jiro qof walaalahaaga u dir fadlan ka xaasidin, waxa waaye ilaahayna uu soo qaaday yani laga yaabo. So haddii videogan ilaa intaa soo gaarta aad daawanaysa, thank you so much. ilaahay ha ku shafro yani sida ii sharafto oo kale. Marka aada ku salaama, aada ku jeclay, iska taxadir, maaskiina xirta. Coronavirus waxa waaye dalka aad iyo aad uu soo daray, marka iska taxadir naftaada, dhamaatay ilaahayna taxadir anagoo dhan. Marka ku salaama insha Allah.